ugu yaraan 45 ka tirsan al-shabaab ayaa lagu dilay weerar dhinaca cirka ah oo galabta ka dhacay tuulada lidhaahdo Dugule ee gobolka Shabeellada Hoose sida uu BBC-da u sheegay gudoomiyaha gobolkaasi Cabdiqaadir Sheekh Maxamed Nuur Sidi. waxaa jira warar kale oo iyaguna sheegaya in meelo kale oo ka tirsan gobolka Bakool iyana cirka laga duqeeyay halkaasi oo xaruniyana u ahayd al-shabaab. haddaba gudoomiyaha gobolkaasi Shabeellada Hoose ayaan goor dhaway telefoonka magaalada marka kula xiriiray Cabdiqaadir Sidi oo aan weydiiyay bal inuu noo faahfaahiyo sida ay wax u dhaceen. waxaa dhacay abaarihii duhuradii ayaa duqeyn waxay ka dhacday tuulo la yidhaahdo Dugule oo ku taala galbeedka deegaanka Toorotoro ee gobolka Shabeellaha Hoose. waxay u ahayd nimanka shabaab 3 sano ama 4 sano laga soo gudbay xaraf oo barayo deegaankaasna waa deegaan istiraatiiji ah. marka yaa duqeynta fuliyay duqeynta gobolka Shabeellaha Hoose runtii operationadii badweynta Hindiya waxaa nala shaqeynayay quwadaha NATO oo ugu horeeya Mareykanka kulli toban maxaan ku radaa gantaalada Tomahawk cruise diyaaradaha drone-iska laga soo gelay. marka diyaaradaha drone-iska gobolka Shabeellaha Hoose aad ay ugu badan yihiin sida nimanka argagixisada ay camad u dhigtay hadda ka hor maxaan ku radaa quwadaha caalamka oo dawladda federaalka la shaqeeya iyo ciidamada AMISOM maxaan ku radaa aad ay ugu badan yihiin riyaha. marka saala lageeda marka waa gantaal 3 gantaal ku habsaday halka tuulada Dugule waa tuulada aad u aqaan shakhsiyan aniga runtii maxaan ku radaa qoroweyna halkaasi gu iyo jiilaalba maxaan ku biyo waa ceegadaan biyaha kama guraan halkaas istiraatiijiyadaas u degeen 3 sano iyo 4 sano ka hor nimankan runtii argagixisada. marka halkaasna dugsi tababar ah macnaha ayaa ku yaalay kadib markii baraawe aanu ka qabanay waxay u soo wareegeen inta ugu badanba nimanka ajaanibka iyo kuwa tababarada iyo qaybta amniyaadka dhinacaas ay u soo wareegeen ka hor xero tababar ay iska ahayd laakiin hadda xoog bay soo saareen waa meelaha maxaafurada ay kasoo ataagaan Muqdisho. marka gudoomiye ma la og yahay khasaaraha uu weerarkaasi geystay xogta rasmiga aan helayno hadda horodhaca waxay sheegaysaa in maxaan ku radaa 3 gantaalka ugu horeeyay inuu ku habsaday guri oo niman ajaanib ah ay ku jiraan runtii oo ina soo tababarada markay bixinayaan iyo marka meelo markay aadayaan gurigii horta dhulku galay asoo dhanba nin shacab askala guriga laakiin ayaga xoog ku haystay 3 sano laga soo gudbayba. gantaalkii labaadna maxaan ku radaa koox oo tababar maxaan ku radaa runtii loo soo xiray shalay daraad ay oo qadaynaya macnaha ay ku xabsadeen halkaas 40 ilaa 60 la sheegay dhaawacoodii la geeyay xogtaas isbitaalka Toorotoro. gantaalka saddexaadna 5 cabdibile ilaa 10 cabdibile oo markaas habeen inay meel u qaxaan ama meel weerar ay ku ahaayeen ma garanayno ayuu ku xabsaday cabdibilaash halkaas ay ku gubteen wixii saarnaa. marka khasaare foolxun ayaa soo gaaray firdhiskoodii hadda runtii tuulooyinka dhan bay maxaa ku firdhiyeen dhaawac badan waxay geeyeen isbitaallo qarsoodi ku leeyihiin deegaanka Toorotoro ay keeneen oo kale way aqoobayaan indhaha ka xiriyaan dad badan baa la yaabda si duqeynta ay u dhacday hadda oo moobelii wixii ka qaadeen. 3 gantaal ee lagu riday marka ma waqti isku dhow bay dhaceen mise muddo u kala dhaxaysay waa 3 gantaal waa maxaa ku radaa uma dhaxaynin maxaa ku radaa 10 second sidaan warka ku hayno 10 second ta uma dhaxaynin waa hal mar la dhigi kara 3 gantaalba waa objective bartilmaameed bay ahayd 3 macnaha 3 goobood muhiim bay ahayd. marka guud ahaan inta dhimashada hadda aad helaysaan waa meeqa dhimasho marka la yiraahdo dhimashada hadda aan helayna inta guriga ku dhintay ajaanibta oo guriga kor loogu qufulay ma garanayno gurigaas oo dhulka galay jibi ahaantiisba laakiin inta kale maxaan ku radaa oo maxaan ku radaa banaanka ku dhimatay 45 baa hadda lagu qiyaasay waa qiyaas iyo kuwa dhaawaca oo gacmaha lugaha ka go'een qaar gubtay oo Toorotoro la geeyay kuya xogta laga helay markii dadka deegaanka markii inta helayna waa adigu waa 70 ilaa 70